tahay aadna wax waa u xiriirisay laakiin gobolka Nugaal iguma fillee Soomaali baan ahay oday Soomaaliyeed oday Puntland darrawaa say wuxuu hogaamisanaa aad iyo aad bay ugu mahadsantahay isagoo wuxuu tacliiqisay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة بنتلاند دكتور سعيد عبد الله ديني قولها بارلمانكا قولها وزيردا ضمان سراكيش شكلته دولة بنتلاند أقاسمياش قد هديهين سراكيش شكل هديهين شغالها مدحتويد هديهين قدوميها العقد إلى اليوم هانت دور كهديهين مرتشور تكل هديهين لما قدوميها قبل كهدوية هاي ما يرجع عاصمة هدوية هاي معمولها أسرية عماد هدوية هاي معمولها هدوية هاي نكلا يراهدو ما يمحل معمولها هدوية جود أو جولس جروب معمولها عماد هدوية هاي معمولها سلام بانك هدوية هاي لما سراكيش كلو مدحتويدا بعض الصحافة دا مرتشارب تكلو دبدا كتيمي صاحبة يقارب عنو سلامة يقار عصتها أنو هنكتا سنة هديهين iyo teendhadan quruxda badan oo madaxweynaha loogu talagalay iyo culimada dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay noo tahay annaga ganacsatada ah inaan ka soo qayb galno xafladan xarig jarka ah ama dhagax dhigga ah oo loogu talagalay Nugaal Heelis oo shirkadda Cimaad iyo Salaam Bankeeda iyo Daabshir waxaan leeyahay Golis Group ay halkaan maanta ku sameynayaan inaan ka soo qayb galno aad iyo aad ayaan runtii ugu mahad celinaynaa inaan ka soo qayb galno maanta marka koowaad haddaan ku bilowno Golis Group waa mahadsantihiin mashruucan aad soo bandhigteen oo aad tirahdeen ilaa 500 milyan oo dollar baa ku baxaysa oo aad dalka u horteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin awalna shirkad waddanka ka shaqeysa oo waddanka maalgelisay baad haydeen shirkadaha ugu horeeya Puntland baana ka mid ahaydeen wixii halkaa ku soo bandhigteen oo quruxda badnaa iyo wixii aad ballan qaadeen ayaanu idinka sugaynaa kastamaradiinaan ka mid noqonaynaa guriga ugu horeeya anuu ma dhihi karo hadda meesha ninkii dalka xukumay baa fadhiyo hortiis ma hadli karo awooddaa ma lihi dalka nin baa iskale odaygii baa fadhiya laakiin kastamaradiinaan ka mid noqonaynaa haddii rabbi idmo halka qodob oo anigu aan halkaas kaga baxayo waxa weeye waqtiga noo dedejiya si dadkan cararay oo waddanka ka qaxay oo odagu soo dabaalay inay soo noqdaan ay u hergasho waqtiga waxa quruxda badan waqtiga soo dedejiya idinka halkaas aan idinkaga tegayaa shirkadaha kale oo tirada badan oo iyaguna waddanka maal gashanaya oo real estate-ka iyaguna wada iyagana waa u mahad celinaynaa iyagana halkaas aan kaga tegayaa dadka saaxiibadayda ah oo ganacsatada ah oo dibadda wada aaday oo Masar tegay oo Turki tegay oo Kenya tegay oo Uganda tegay oo Kongo tegay oo dibadaha wada aaday oo Yurubta kala tegay dadka waxaan leeyahay warooy dalkiina imaada dalkiina ku soo noqda xoolaha dalkiina geeya dal shisheeye dheef ma leh habeen dhixistiin mooye waxaan idin leeyahay kaale dalkiina xoolaha gashada marka ninka dalkaa jooga uu dhinto ama kuwa gaalada ay baksiyaan oo mid cusub yimaado wixiina waa idinka boobayaa ha isku hadlaynina odageenaas waxa uu ka shaqeynayaan kala shaqeynaynaa kaale oo dalkiina ku soo laabta idinkana intaasaan idin leeyahay ganacsatadiin waxaan rabaa inaan hal qodob ku daro oo kaleeto saaxiibkay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni 5 waxyaalood oo ka socda Puntland Soomaalida weynna kama socdaan dowlad goboleedyada kama socdaan kow Daacish baa dalkii laga sirtiray oo dalkii ammaan baa laga dhigay oo dadkii dibadda u qaxayay intaas waa inay saa u ogaadaan qodobkaas waa kow qodobka labaad waa isku tashi ogaada qodobka labaad dekada garaac dekada meel ka socod soo kaleeto oo aan ahayn Puntland ma jirto iyaduna waa labo qodobka saddexaad
wadada ceeldaar ceergaabo meelaan Puntland ahayn ka socoto ma jirto iyaduna waa isku tashi kaleeto oo dalka ka socda qodobka afraad gaalkacyo boosaaso garoowe laascaanood wadadii oo isku tashiya oo kaabayaasha dhaqaalaha ka socda qodobka shanaad kaynu dhex joogno 500 milyan baa ka socda iyo wax kale ka sii daran qodobka kaleeto buundada garow hadda laga sameeyo arrinta inta leeg tahay oo isku tashiga ah iyaduna halkaan ka socotaa waryaada bal lix isku tashi oo inta la leeg iyo kuwa kale waa iska deegayaa wax badan baa jira haddaan rabto boosaasan galaya iyo soolarradii haddaan rabo ciidamadan galaya war waxaas isku tashiga ninka odaga inoo hayaaye kuwa horta kursiga odaga raadinayo haddaan reer garow nahay reer garow haddaan nahay oo bartanka aan joogno annagu odaga waa deynay kuwa hunguriyeynayo waa deynay kuwa raadinayo waa deynay odayaasha waaweynkan hadda waa ku jira baltaan hadda ogaada yaa ogaada warkaygu war qormaya weeye kuwa saxaafadowna ha ka jaranina kuwa ii ciil qabayowna odagii adeerkay islaam maxamed wuxuu dhihi jiray illa kama boqo erana kama boqo waa ka dhaxal hadda lixdan iyo xoogaana waa jiraa warkayguna waa qormaa waxaan ku gabagabeynayaa waa wada qosadeysaan anu illa kama boqo adeerkay islaam ciisa islaam maxamed baan intaa ka bartay waxaan ku gabagabeynaya warka kaga baxayaa anugu ninka ii shaqaynayaan rabaa nimaan ii shaqaynayn ma rabo carruurtayduna hadda alxamdulillah way iska roon yihiin waddankay joogaan dibadda waxba kama jiraan aan hadda ayaan dhow Maraykan tegey oo waxaan ka doontay geedka xunka meelaha lagu marmaro waxaan ku gabagabeynayaa odagu dibay ma dhaafo baasboor maya meel aadi karaa ma jiro dibay ma dhaafi karo iyo Nairobi iyo meelahaan Maraykan mid intay kara maaha waxaan warka kaga baxayaa isku tashigaas inoo ballana dalkeena ilaashadaynaa dadkeena ilaashanaynaa deegaankeena ilaashanaynaa innagu Puntland baynu nahay Puntland inaan noqono isku tashana inoo ballana وإذا قصلي قصر كاس أو بان يدينه عبارة بس عبوسنا يدينه آلي البلد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته